Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan daawadeyaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya. Qaybtan waxaan ku eegi doonaa xiisada kasoo korodhay Bakistan iyo weliba sidoo kale Afghanistan oo si lama filaan ah mar qura cirka isku sii shareertay. Caawa Afghanistan waxba helay oo weliba duqeymo aan kala joogsi lahayn ayay Bakistan kala dul dhacday, iyadoo xiisada bariga dhexe ay kusoo foganeyd Iran iyo Mareykanka ayaa markan mar qura isku bedeshay in ay cirka isku sii shareerto. Bakistan talaabaday u qaaday Afghanistan waxay noqon doontaa mid ay ugu jawaabi doonto Afghanistan. Fariimo culus ayaa la isku diray, laakiin weerar jawaab celis ayay bixisay Bakistan oo weliba talaabo culus ay u qaaday. In muddo ah ayaa lagu jiray kiiskooda, laakiin waxa uu u muuqday in markaasi lagu guuleysan waaye oo xal buuxa laga gaari kari waayey. Xiisada waqtiga kan aan idinkala hadlayno, Bakistan iyo Iran ayaa fooda isku haya oo weliba weerarkii ugu horreeyeyna Bakistan ayaaba qaaday. Talaabada waqtigan ayaana la tilmaamaya inay tahay mid kale saameyn xoogan ay ku yeelan karto haddii xiisada bariga dhexe ee Mareykanka iyo Iran toodi aan xal buuxa laga gaarin. Wadahadaladii u dhexeeyay qudhooda dib ayaa loo dhigay oo weliba mar kale ayaa loo cilaamay in la qabto. Intaas ayaan rabaa inaan daqiiqada idinkugu soo koobo. Soo dhawaada kuna soo dhawaada Shariif Show. Muuqaalka like saaxiibada hore inoo joogo meel dheer ayaynu gaarsinaysaa noo like gareeya. Sidoo kale subscribe soo dhaha channelka nagu soo biira 2000 si aan ugu soo dabaaldegno. Hambalyo ayaan idin leeyahay markuu guriso 1000 subscribe ayaan u dabaaldegaynaa. Mahadsanidin. Soo dhawaada saaxiiba. Xiisada u dhaxaysa Bakistan iyo Afghanistan ayaa si lama filaan ah u sii xoogeysatay, iyadoo ciidamada cirka ee Bakistan ay fuliyeen weeraro duqeymo xoogan oo weliba ay ku beegsadeen gobolada Nangarhar, Bakhtiit iyo weliba sidoo kale Khost ee bariga Afghanistan. Wararka ayaa sheegaya in ilaa iyo weliba haatan 7 xero oo ay markaasi burburiyeen intii uu socday howlgalka, iyagu ay ku tilmaameen in gebi ahaan bay ugu sifeynayaan. Bakistan waxa ay sheegtay in markaasi duqeymahaasi ay ahaayeen jawaabo ay markaasi ka dalbatay weerar argagixisa oo horey ay ugu soo kordhay gudaha dhulkeeda, kuwaas oo markaasi lagu dilay 10 askari ah oo ka tirsan ciidamadeeda. Dhanka kale, iyagoo markaasi ka jawaabaya duqeymaha cirka ee ciidamada Afghanistan ayaa la sheegay in ay markaasi bilaabeen weeraro dhulka ah oo ay markaasi ku qaadeen saldhigyada Bakistan ay ku lahaayeen xadka Afghanistan. Waxaana sidoo kale la tilmaamayaa in ay markaasi qabsadeen 2 xero oo Bakistan ay leedahay, isla markaana ay ku dileen tiro askar ah oo ay qayb ka tahay Ashe Kast oo ah taliya sare oo halkaas in muddo ah ka arriminaya. Bakistan ayaa beenisay sheegashadaas iyadoo markaasi ku adkeysay in aysan jirin saldhigyo laga qabsaday. Ilaa haddana ciidamada cirka ee Bakistan ayaa la sheegaya inay markaasi sii wadaan howlgalada duqeymaha cirka ah. Waxaana sidoo kale ciidanka Bakistan ay ku dhawaaqeen inay bilaabeen howlgalkii militariga ahaa oo ay Afghanistan gebi ahaanba ay ku weerarayaan deegaanada ay ku teesan tahay weliba xadka labada dal, kadib markii ciidamada Afghanistan ay weerareen saldhigyo ciidanaha Bakistan ay ku lahaayeen. Muuqaalada ay baahiyeen warbaahinada Bakistan ayaana markaasi lagu sheegay in 22 askari oo ciidamada Afghanistan ah lagu dilay halka howlgalka uu socdo. Sidoo kalena ay burburiyeen saldhigyo Afghanistan ay ku lahaayeen xadkaasi. Mana jirto ilaa hadda weli wax warcad ah oo kasoo baxay, inkastoo dhinaca Afghanistan iyadoo ay ku dhawaaqday in ciidamadeedu ay markaasi weeraraan welibana ay ku qaadaan fariisimaha militariga ee Bakistan ay leedahay xadka u dhexeeya labada dal, oo welibana jawaab ay u noqon karto duqeymaha Bakistan toddobaadadii hore ay ka fulisay gudaha Afghanistan. War-saxaafadeedka ka soo baxay warbaahinada ee taliska militariga Afghanistan ee bariga dalkaasi ayaana lagu sheegay inay markaasi dhacday duqeyn culus oo kana socon doonto qeybo badan oo ka mid ah dhulkaasi. Waa sida uu sheegay afhayeenka dowladda oo welibana Afghanistan Zabihullah Mujahid la yiraahdo, oo weliba qoraal uu ku sheegay ayuuna ku tilmaamay in gebi ahaanba ay burburin doonaan dhan kasta iyo weliba tallaabo kasta loo qaada. Mana jirto ilaa hadda wax guul ah laga gaaray, walow inta badan ay sheegayaan wararku in ay markaasi xukuumadda tallaabadan ay u qaaday Afghanistan ayna ku shaacisay in ay diyaar u tahay wada hadallo oo weliba haddii Bakistan in ay la geli karto si loo soo afjaro khilaafka in muddo halkaasi ka taagnaa, welibana caawdu qiimihiisu ay cirka isku sii shareereen. Dhinaca kale, wadahadaladii u dhexeeyay Mareykanka iyo Iran ayaa la qorsheeyay in mar kale dib ay u dhacaan si xal buuxa loogu gaaro, inkastoo aanan weli qorshe cad laga gaarin. Laakiin waxaa la tilmaamayaa in toddobaadyadii dambe soo socdo dib ay u furmi doonaan wadahadaladii si loogu doodo
kiiska ku aadan balastiga ama hubka ridada dheereeya oo Iiraan ay si weyn ugu adkeysanayso